waayay yarkan wajigiisa u jeedaan Cumar Cabdi Jamaal Allah ani ma garanayo laakiin Soomaalida qaar waxay leeyihiin Soomaalida reer Minnesota gaar ahaan inta hadaada commentiga ku arkay ninka waa la yaqaanaa waa caan ninka saaka waxa watay aysa wadatay ninka aysa ku dhigin xitaa muuqaal waxay soo dhigeen sida u jeedaan ninka odayga oo la qabanayo oo la sii wato gaari la sii saaranayo Tyson ninka marka aniga ma garanaynin marka saaka arkay anoo newska ku jiro wax raadinayo muuqaalka la soo dhiga arkay oo ay leeyihiin nin Soomaali ah ayaa qabanay oo ninkan wajigiisa soo dhigay waxa la leeyahay ninkan wajigiisa waa kugu yaala inta ku aragtay ninka wajigiisa kugu yaala inta ku aragtay isla horta ninka waa nin caan ah waxa ku xirantahay had qofka wadiisa ku xirantahay ninka ma ahan darbi ka bood 25 sano ilaa 30 sano muddo ku qiyaasay ayuu Mareykanka joogaa hadda koor Canada soo galay Canada iska dhiibay sharciga siyan Canada green card asagoo wato oo hadana Mareykan iska dhiibay Mareykan haba iska dhiibay muxume Canada ka soo tagay muxume wuxuu diiday yiri ama uu qariyay kiiskiisa Canada uu qariyay waa goormay waa 15 sano koor Trump xitaa ma jirin madaxweyne uma tirtameen adiga marka wixii intaas kadib dhacay aniga kama warhayo laakiin ninka odayga ah waxa uu muuqataa inuu NGO iska lahaa ama hay'ad uu iska lahaa hay'adaasoo uu sheegan jiray Soomaalida inuu wax u qabto ama uu ololeeyo ama ka hortag argagixisada miya wax saas camal adiga uu Minnesota mashruuc noocaas oo Minnesota ninka odayga ka wati sida aan soo akhriyay xitaa wuxuu xafiis ku lahaa meel masaajid ah oo Minneapolis ku taalo meel ku dhigan dabaq ku dhigan oo xafiis ninka ku lahaa saxaafadda afka Ingiriiska ku hadasho ee Minnesota markay Soomaalida rabaan inay la hadlaan ninkan uu jireen sababtoo ah ninkan wuxuu sheegan jiray ama hadda maadaama la xiray sheegan jiray dhigana baastaga dhigana wuxuu sheegan jiray inuu hogaamiye Soomaali ah Somali community leader wax loo yaqaano hogaamiye Soomaalida asaas sheegto ogaadaya Soomaaligii masaajidka ka soo baxo kii muqaayad iska leh kii meel baalbiyeeri furto kulli Soomaalida waxa u diiwaan gashan markay la hadlayaan saxaafadda Mareykanka kulli waxay ku leeyihiin waxa ahay hogaamiye Soomaaliyeed ilaan Soomaalida buufska noocaas ku jiro magta Somali community leader hadda Minnesota ka aragtidba waa hogaan Soomaali waay kii baalbiyeeri iska leh kii dhargadayo kii dacaskadayo kii taksiila ah kulli waa community ninka odayga marka mashruuc noocaas oo asagana ku socon jiray police inuu ahaa oo Mareykan ah taasna waa la isoo sheegay in runtahay in kale ma oga soo koofida sheriff wato ayaa xitaa sawiradiisa lagu arkay adiga almuhim warkiyo kooban ninka odayga reer Minnesota da ila socotiin saak waa la watay waa aabe aruur afar u dhalay leeyihiin qoyskiisa Minnesota Minneapolis ay degan yihiin laakiin aniga waxa ilaa hadda su'aasha Sweden waxay tahay maxaa lagu xiro lagu watay lagu xiray ice ninka wariyaha ee soo dhigay wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan immigration fraud wax kastoo noqon kara ina adiga tug beenaale aan noqotid oo dadka lacag ay ka qaadatid darbiga ka soo boodaysiin ama kiis waxba idin habeena asylumka kiiska magangeliyada idin habeena taas waa noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa in qaabka Mareykan ku soo gashaba ay tuuganimo ahayd immigration fraud taasna way noqon kartaa marka adiga saasi hadda leeyihiin wixii ku soo kordho sheekadaas waa inay soo socdeen waxa ka rabaa dadka reer Minnesota degan ninka odayga taqaaniin commentiga soo